ee ka warramaya waxa loo yaqaano adduunyadu siday dadkeeda u gasho bal waxaynu iyadana jallaacaynaa qiso laga wariyo nebiyullaahi ciisa calayhi salaam waxaa la yidhi nebiyullaahi ciisa wuxuu soo maray maalin meel buu soo maray waxay isku lug darsadeen nin banu israa'iila nin yahuudiya war ma israacnaa haa aan israacno jidkii baa kulmiyey waa la rafiiqay haddii la israacay safarku jicsin buu u baahan yahay nebi ciise wuxuu sitaa xabad kibisa amba xabad roodhiya raqiif ah kan kaleetona wuxuu sitaa labo mar haddii la safrayo oo jidkii uu kulmiyey la iskuna lug darsaday jicsinka la sito in la wadaago bay noqonaysaa markii horena kan yahuudigii wuu ku qancay arrintaa laakiin waa yahuudi laxajeclo xumo lagama waaye ciise salaad buu galay nebi ciise intii uu salaadda ku jiray ayaa naftiisii shaydaan wuxuu ugu sheekeeyey labadaada midh ee roodhida ah khubuska ah yaanu kula wadaagin ninkan martiga ahi labadaada mid iyo mid ha noqotee labadaada horta mid hadeer sii cun intuu salaadda ku jiray buu mid sii cunay nebi ciise salaaddii buu ka baxay nebi ciise wuxuu yihi labadii inoo keen jicsinkii aynu sidanay dee laba un baa la keenay tii saddexaad meeday tii awalba saddexba ma ahayn laba un bay ahayd buuli saddex ma jirine labadan un baynu sidanay awalba iska aamusay nebi ciise safarkii waa iska sii wadeen arrimo adyaab leh oo mucjizo ah cajaa'ib ah ayuu la kulmay nebiyullaahi ciisa oo kan wax lagu tusayo waxaa ka mid ahaa nin buka oo jiran oo weliba aad iyo aada u dhibaataysan oo nebiyullaahi ciisa uu gacmaha mariyey ilaahay u baryey u duceeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sidiisii ku soo celiyey markaasuu yaabay ninkii la socday oo yidhi subxaana allah arrintan mucjizada ah cajiibka nebiyullaahi ciisa markaasuu ilaaha ku tusiyey arrintaa iyadaa baan kugu dhaariye xabaddii saddexaad yaa cunay markaasuu yidhi saddex ma ahayn labaynu sidin waa iska socdeen u fiirso hadda adduunyadu ehelkeeda say u gasho waa la socday laxajaalo xumadu siday dadka u gasho waa la iska sii socday waxaa la yidhaahdaa markii dambe ugaadh deero ba wax la mid a ayuu qabtay nebiyullaahi ciisa waa la qashay waa la cunay markii la cunay kadib ayuu nebiyullaahi ciisa mucjisooyinkiisa waxaa ka mid ahaa wax dhintay inuu yidhaahdo idanka ilaahay ku kaca dabeedna neefkii halka la cunay ee la qashay wixii ka soo hadhay buu yidhi idanka ilaahay ku kaca waa iska kacday dabeedna waa orday oo waa carartay oo halkaasay martay subxaana allah buu yidhi kii yahuudiga ah ciise wuxuu yidhi ilaaha ku tusay mucjisadaasaan kugu dhaariye yaa cunay xabaddii saddexaad wuxuu yidhi xabad saddexaad ma jirin waa la sii socday markii dambe waxaa laga tallaabay webi nebi ciisa gacanta qabtay waxay ka tallaabeen oo ka tallaabiyey webigii waa si mucjizo ah xaggaa markay u tallaabeen buu yidhi mucjisadaasi aad aragtay ilaaha ku tusay baan kugu dhaariyey yaa cunay weli wuxuu la soo taagan yahay labaynu sideen halkaa markay marayso ayaa waxay la kulmeen nebi ciise iyo ninkii la socday saddex kuus oo dhagxaan dahab ah ayaa la helay saddexdii buu nebi ciise wuxuu yidhi tan adigaa iska leh tanna anigaa leh tanna waxa leh ninkii cunay xabaddii saddexaad markaasuu kii ishayn waaye waa yahuudi adduun arkay iyo dahabe markaasuu yidhi xabaddii ma ogay tii saddexaad anay igu tagtay anigaa cunay waa tii intaas oo mucjiso laysla soo maray oo mar walba uu lahaa ilaahay baan kugu dhaariyey mucjisadaa ku tusaye yaa cunay uu lahaa may ma jirin hadda markii dahab la helay adduun la arkay wuxuu yidhi xabaddii ana muxuu ujeedaa inuu tanna inuu isagu qaato nebi ciise wuxuu yidhi saddexdaba qaado saddexdaba isku darso ina kala kaxay sii wada socon kari mayno ciisena halkii buu uga tegey saddexdii kuus oo dahab balballaadhan dhagxaan ah ayuu uga tegey isagoo ku wareegaalaysanaya oo aan qaadi karayn
yaa waxaa u yimi niman wada socda 3 nin ayaa u yimi waxay arkeen ninkan dahabka iska haysta ninkii bay dileen horta kowda ka siiyeen 3dii waxay yidhahdeen 3dan inagaa qaadanayna waana qaateen wax badan intayan ka socon ayay tashadeenna waxay yidhaahdeen tuulo taasaa inoogu dhow nin aan dirno tuulada ah inooga keeno jicsin iyo sahay nin baa la yidhi adigu tag meesha intii la sii socday ayaa midba shaydaanku niyaddiisa wax ku ridi labadii laga tegey halka kan ee ku hadhay waxaa shaydaanku ugu sheekeeyey dahabkan labadiinnu qaatoo qaybsada kan maqan ee jicsinka aad u dirateen marka uu soo noqdo jicsinka idiin keeno dila sidaasay ku tashadeen kii xaggan ku maqnaana isaguna wuxuu ku tashaday raashinkan iyo waxaan aad meesha geynaysid sii sumay nimanku gebigoodaba sumay sunta markay cunaan ha idlaadeen adigu u soo hadh dahabka kan sidaasuu isaguna ku tashaday waa soo noqday raashinkii iyo cunnadii oo sumaysan buu sidaa kuwani kama hadlina ninkii markiiba waa dileen kow bay ka siiyeen waa kan baleen markay dileenna waxay hamuum kula dhaceen ilaa way gaajaysnaayeen raashinkii dabadeedna raashinkii markay cuneenna waa isku barbardhaceen 3diina halkii bay ku halligmeen kii hore ay dileenna meel u dhow buu yaallaa nebi ciise mar kale ayuu soo noqday isagoo xawaariyiintiisii wata markaasuu dul yimi waa 3dii dhagax oo dahab ahayoo sidoodiiya kii hore oo meyd ah 3dii dambe oo iyaguna iskhiyaameeyey oo 3diina wada meyd ah markaasuu yidhi addunyaa haakadaa tafcalu biahliha faxdaruuha hadal macnihiisu yahay adduunyadu sidaasay tahaye sidaasay ehelkeeda u gashaaye war hoy ka